dagaalyahanada Taliban ayaa gudaha u galay madaxtooyada Afghanistan kadib markii madaxweyne Ashraf Ghani uu dalka ka cararay xilli ay kooxda si xawli ah ugu socotay caasimadda Kabul. waxayna wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen in ay la wareegeen madaxtooyada. Al Jazeera ayaa baahisay muuqaalo gaar ah oo hogaamiyaasha Taliban oo ku hareeraysan yihiin daraasiin dagaalyahano hubeysan. Taliban waxay hore u qabsadeen Jalalabad waxayna gudaha u soo galeen Kabul iyagoona qabsaday 26 ka mid ah 34 magaalo ee dalka Afghanistan in ka yar 2 toddobaad. bixitaanka Ghani ayaa yimid iyadoo ay socdaan wada xaajoodyo ku aadan in awoodda si nabad ah looga wareejiyo. hase yeeshee shaqaalaha qasriga ayaa markaa la sheegay in lagu wargeliyay inay madaxtooyada isaga baxaan. sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Ghani uu tagay dalka Tajikistan. dhanka kale sargaal sare oo ka tirsan kooxda Taliban ayaa sheegay in imtixaanka dhabta ah uu hadda bilaabmayo iyagoona sheegay inay cafis u fidin doonaan dadkii dawladda la soo shaqeeyay iyo xoogaga ciidamada qaranka. haddaba waa kuma madaxweynaha ka baxsaday dalkiisa Afghanistan. Mohamed Ashraf Ghani waxa uu ku dhashay 19 bishii May sanadkii 1949 gobolka Logar ee dalka Afghanistan. wuxuu ku barbaray isla dalkiisa hooyada Afghanistan kahor inta uusan waxbarashadiisa dibadda ahi aadin. wuxuu madaxweyne Ghani ka soo jeedaa qowmiyadda ugu ballaaran dalkaasi ee Bashtuuniga. Ashraf Ghani ayaa la soo shaqeeyay Bangiga Adduunka inta uu ku sugnaa dalka Mareykanka. Ashraf wuxuu markiisii ugu horeeyay soo shaabaxay 2001 kadib dhicitaankii Taliban isagoona ku soo laabtay Afghanistan si uu xirfadiisa iyo aqoontiisa gaarka ah uu dalka u geliyo. waxa uu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee Afghanistan Hamid Karzai isagoona laga dhigay wasiirka maaliyadda sanadkii 2002. intii uu ahaa wasiirka maaliyadda wuxuu qaabeeyay ama hagaajiyay waaxda maaliyadda wuxuuna bilaabay dhowr barnaamijyo maalgashi dadweyne taasoo horseeday in horumar weyn laga gaaray habnololeedka dadka reer Afghanistan. mar kale ayaa loo soo bandhigay inuu ku biiro dawladda cusub ee la doortay December 2004 balse waa uu ku gacan saaray dalabkaasi kadib markii ay iskhilaafeen madaxweyne Karzai waxaana loo magacaabay inuu hormuud ka noqdo jaamacadda Kabul. Ashraf Ghani waxa uu sidoo kale hormuud u ahaa dadka ka soo horjeeda qaabka aan wanaagsaneyn ee loo maareeyo lacagta ay deeq-bixiyaashu ku taageeraan Afghanistan. Ghani waa nin aqoon-yahan ah oo inta badan xirfadiisa ku qaatay meel ka baxsan Afghanistan. waxa uu xukunka qabtay 2014 waxaana xilligaasi loo arkayay inuu yahay nin la dagaalami kara musuqmaasuqa. hase yeeshee 5 sano kadib iyadoo la xasuusto eedeymihii ahaa in wax isdabamarin ay ka dhacday doorashada ayaa waxaa hoos u dhacday sumcadiisa. Ashraf ayaa markaasi soo bandhigay siyaasad ka dhan ah musuqmaasuqa laakiin waxaa muuqatay in horumaro badan aan laga samaynin la dagaalanka musuqmaasuqa. horaantii bishii September Mareykanku wuxuu sheegay inuu la laaban doono lacag dhan $100 milyan oo loo qoondeeyay mashruuc tamar ah iyada oo sabab looga dhigay musuqmaasuq aad u sareeya oo ka dhex jira dawladda Afghanistan. Mr. Ghani intii uu xafiiska joogay waxa uu isbahaysi la galay madaxiisii fulinta oo sidoo kale ahaa ninka ugu cadcad musharaxiintii la tartamaysay kaasoo lagu magacaabo Cabdullaahi. tan iyo markii uu xukunka qabtay 2014 waxaa sii xoogaysanaysay kooxda Taliban. Ashraf Ghani waxaa laga hor istaagay inuu ka qayb galo wada hadalladii u dhaxeeyay dawladda Mareykanka iyo Taliban. Taliban ayaa u arkayay dawladdiisa inay dabal-bilif u tahay dalal shisheeye. geesta kale waxaa sidoo kale la soo warinayaa in madaxweyne ku-xigeenkii dalka Afghanistan Amrullahi Saleh uu dalka ka cararay. marka loo eego Mr. Ghani waxa uu la kulmay cadaadis ah inuu iscasilo kadib markii kooxda Taliban ay la wareegeen magaalooyin waaweyn oo dalkaasi muddo ku siman 10 maalmood. wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan ayaa hore u sheegay in wada hadallo ay u socdaan si loo hubiyo in si nabad ah xukunka loogu kala wareego oo magaalada aan dagaalo ka dhicin. afayeen u hadlay Taliban ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dagaalyahanadooda lagu amray inay ku ekaadaan cirifyada caasimadda